dhawaqa baxaya hooy miyay dhagahaagu maqal dhulkiiba kula hadle miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhayahaagu arag qaranka dhitaysatee na dhaaf bay ku leeyihiin haddeer waad daragsantee na dhaaf bay ku leeyihiin xilkaagii dhammaysatee na dhaaf bay ku leeyihiin dharar qura kuma rabne na dhaaf bay ku leeyihiin waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad ku nooshihiin xurnimo hase yeeshee muqdisho hadda waxaa qabsaday maamul kaligii talisa ee rumayso oo odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii ganacsatadii iyo ururada bulshada rayidka maanta muqdisho kuma noola qof hadli kara ee rumayso oo idaacadaha guud ahaan ma baahin karaan war ka soo horjeeda maamulka Damujadiid haddaba caawa waxaa idin wacayaa oo aan cod ka duubaynaa gudoomiyihii golaha guurtida beelaha hawiye maxamed xasan xaad oo qasab ay uga dhigeen inuu noqdo camliyada Damujadiid qasab ay uga dhigeen qasab igu jira qadka hold on waxaan doonayaa oo saa idin leeyahay waxaan rabaa waxaan ka hadlayaa ma runba oo maxaqiiqba yani waxaan ogahay xasan garguurte inuu dadka asaga telefoonkiisa caadiga ka waco uu yiraahdo hebel ha may maqlaysaa ka bax faariga digal ku diraya hadaan doo aniga text message in soo qarwad yaabisiin isagoo madaxweyne dhamo dal sheeganayo nin yaro iska maskiin oo daar cala soo lidaado oo leeyahay meel baan ka dhacayna bohol baan ka tuureynaa hadda ka aamusan arrimayn marka waxaasi dhaqan maaha saasad igu jiraysaa qadka ana hadin tusinayo xaqiiqada ka jirta nolosha runta rasmiga ah marka jirta intisniya gudoomiyahay war gudoomiye waa daar cala soo balwaran berigi xabashida ay haysatay waa adiga hadlaayay gudoomiye golaha guurtida hawiye ahaa dhibka dhacay iyo waxa soo dhanka hadli jiray haddana waa adiga iska aamusay oo taadiyada dhacdo og tahay oo ilaahay ku masmadiiday xabsiyada dhalinyarada ay ka buuxaan oo aad og tahay maanta waxay nagu sameynayaan Damujadiid dadkii ay u galayaan in magaalada dhamay dadkii aysan ganacsan karin ardadii iskuulada inta la xirtay lacag madax furasho laga qaadanayo marka shalay markuu Cabdullaahi Yuusuf joogo ma qabiilniman ku haysanay oo xaadow wixii laga hadlaayay shalay waa qaldalaayeen maanta kuwa laga hadlaayana waa saxan yihiin miya wixii socday wax nala khaldanayeen laakiin wax ka sii qaldan yimid oo waxa weeye dadkii wujuuna yimid waxa yimid handadaad dii fara badan dadkii ka hadlay iyo wax hadda loo dhaartay aniga xoogaa tinamada la igu wareey laakiin si fiican la ii tahdiiday dabadeedna waxa lagu hadaan afkaada adan qaban waa maqan tahay waana ku qancay waa iska dhaafay marka barnaamijka hadda waxa uu iska noqday dadkii dad oo afka laga haayo wadan sadmaaran waxaan ku sheegnaa anaga madaqaan wadan xor lagu ma sheegi karo marka dhibtaas hadda ka jirta annaguna hadii meel waqtaan ku jiraaho waa iska gaabsanay marka waxa hadaysan jirin xornimo aysan jirin oo madax banaani aysan jirin oo xorriyadu qowlkii oo meesha maqan yahay hadee waa iska gaabsanay marka laakiin wax lagu qanaa kareynaysan qof walba waa ujeeda hadii uu waa lagu xilaana iska aamusto oo xari ka baqdo shalna xilligii Itoobiyaanka joogana Cabdullaahi Yuusuf joogan ka baqa jirine taas mis qabata oo arinta hadda ma kula tahay sax ma kula tahay waa ogtahay waxa maanta xabsiyada ka jira waa ogtahay dhibaatada taagan maanta laga sheekay karin waa ogtahay marka hadee ana gudoomiyihii golaha guurtida hawiye ah iyo dadkan oo hadli jiray la dhibaataynayaan ka aamusa oo cabsidateedan aamusa marka hadda ma kula tahay inaad arintaas kolba hadda xataa ku noolaa karin magaalada soo baxdo hadasho oo gobolada dhexe iska aadi maana way ahaday laakiin hadda waxaad moodaa idaacadaha xataa meediye kuwa badan maqadka ka maqan oo dadka shaqaalaheedii iyo kulli la xirxiray hantidoodii iyo wuxoodii waa la burburiyay meeshan tacarbiyo badan ka dhacay dadaan xilkaseen oo maaragtay la haysto wixii isaga jawr falay marka gobol fal badan dhacay annagana hadii taas oo kale markaan fiirinay waxaan ku qaadanay inaan waxba ka hadlino iska aamusno
أديكو إسبدلان وأركي إسبدلي ويانا هذا سيدا موقتاه مثلا dad xirxirno xabsida ku jira oo inay hadlaan darteedu qaran wax kale oo lagu hayo la arag wax kale baashan wax sheegaan kaliya u xiran ama saxaafada ahaadeen ama dad kale oo shakhsiyaad ahaadeen anadaas xoolo la yidhaahdo ayadana si fiican la taadiido madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa wasiiro ilaa dad hoose oo maaragtay kasi hooseeyo saraakiil inta la hadlay adeer waraal aaba la yiri afkaada naga qabo marka intaas markaan uu dhameeyay waxaan isla meeshaan meelad ka sii hadli karta ma ahan hadda sidaasaan maaragtay sagaab silaadeer laba maar meesha ciidamada shisheeyna waa joogaan dad aan muuqan oo dalka xukumaana waa jiraan iyo qoom muuqda intaba marka dadkan anaga Soomaalida amar baa la siinaa waxa la wixii maaragtay iyagu doonaan ma lagu qasbaysan doonin waxay doonaan mid waa marka هذا مسؤولية هذا كي نساعد واحد قبل كرتين نفط دواق بحايا هوي ميي دغهاغو مقال دولكيبا كولا هالي ميي دغهاغو مقال هداي دغهاغو مقال ميي دايهاغو arag qaranka dhitaysatee nadaaf bay ku leeyihiin hadeer waa daragsantee nadaaf bay ku leeyihiin hilkaagi dhamaysatee nadaaf bay ku leeyihiin dharar qura kuma rabne nadaaf bay ku leeyihiin heestan waxay qayb ka tahay hees uu qaado fanaanka xasan biladin bil xasan wado oo maalmo ka hor la soo saaray heestu waxay leedahay dhagaha aadoon isxirin daayahana aan istirin intaan ummadaan dhibanayaashaan dulmani dhagax kaala daalino adna dhiigooda qubin dhawaaqa baxaya hoy miyay dhagahaagu maqal dhulkiibaa kula hadlee miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhaayahaagu arag qarankaad dhitaysatee nadhaaf bay ku leeyihiin hadeer waad dheegsantee nadhaaf bay ku leeyihiin xilkaaga dhammaysatee nadhaaf bay ku leeyihiin dharaar qura kuma rabnee nadhaaf bay ku leeyihiin waa dhabanahaysiyo dhambaaliyo fariiniyo rahu dheregsanaaye dharar qura nin dhaansaday waa waxaan la dhaygagay ma kuwiina dhacayban xilu dhiibanaynaa dhegahaadoon isxidhin dayahana aan istirin intaan ummadan dhibanayaashaan dulmani dhagax kala daalino adna dhiigooda qubin dhawaaqa baxaaya hooy miyay dhagahaagu maqal dhulkiiba kula hadlee miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhaayahaagu arag qaranka dhitaysatee nadhaaf bay ku leeyihiin dharar qura kuma rabnee nadhaaf bay ku leeyihiin hadeer waa dheregsantee nadhaaf bay ku leeyihiin xilkaagi dhammaysatee nadhaaf bay ku leeyihiin ma kuwiina dhacay baan xil u dhiibanaynaa jawaabtu waa maya Matan madaka digni barina dada Hikaga damayso nasida Aku degine nodi Dagaha adon serin ayahana adistirin dagaha adon serin ayahana adistirin intanu madani dibana ya shani dulmani dagax kala daalino adna dhiigooda qubi matan madaka dhigne barina dada kaga dhamayso nasida aku degine nodi
ayahoy miyay dhagahaagu maqal dhulkiiba kula hadlee miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhagahaagu arag aragka ditaysatee nadhaafay ku leeyihiin haddayd waa dharagsatee nadhaafay ku leeyihiin kaagi dhammaysatee nadhaafay ku leeyihiin annaga ku dhiibanee nadhaafay ku leeyihiin qaraar qura kuma rabnee nadhaafay ku leeyihiin mataan madax kaa dhignee berina dhaadhac dhaadhac inkaga dhammayso nasiidhaaf nasiidhaaf haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib mataan madax kaa dhignee berina dhaadhac dhaadhac inkaga dhammayso nasiidhaaf nasiidhaaf haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib haku dhegine noo dhiib